مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta sharafta leh waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan. kusoo dhawaada channelkeyga Muna Home. waa anigoo Muna ah, halkaad naga daawanaysaan waa Muna's Home. maanta maasha allah waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago afur yar oo fudud, aad iyo aadna u fiican, aad iyo aadna macaan waaye maasha allah, inaba caadi ma aha, lagama sheekeyn karo. afurkeena maanta wuxuu ka kooban yahay saad arkaysaan, waa digaag, chicken wings aad u taqaanaan, iyo bulgur oo qudaar aan kusoo karinay. intaasi ayuu afurkeena maanta ka kooban yahay maasha allah. barbarooni iyo basal ayaan dusha ka saaray saad ujeedaan. waa afur yacni aad iyo aad u fudud, waqti badanna aanan iga qaadanin. afurkan dhan markii la isku wada daro maxayd 40 daqiiqo wax ka yar ayaan ku sameeyey. marka maasha allah aad iyo aad ayuu idin cajimin doonaa. idinkan waxaan rajeynayaa in aad tijaabisaan oo baroobeysaan. haddana maxay ahayd videogeeni ayaa bilaabanaynaa. haddii aad nagu cusub tahay channelka aad ku cusub tahay, fadlan subscribe, like and share. asxaabtaada iyo familigaada ila wadaag videoyada. haddii hore aad u joogtaan insha allah liketa iyo comment iyo shareta intaba ha i hilmaamin. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddana maasha allah videogeeni ayaan bilaabanaynaa. digaaga maasha allah ayaan hadda ku hormaraynaa, asiga ayaa waqti dheer qaadanaya. karistiisa ma dheera, laakiin waxaa loo baahan yahay in xawaajiyadii iyo soosaskii inaad isku qastid oo meel aad dhigtid dhowr saacadood, aad firinjeerka aad gelisid. saas ayaa fiican, markaasi digaaga wuxuu kusoo baxayaa dhadhan fiican ayuu kuu yeelanayaa. marka hadda waxaan isku dardaraya waxaa waaye, waxaan isticmaalayaa waa 2 qaando kajab. haddii kajab aadan rabin, tomato waad isticmaali kartaa, yaanyo shiishid waad isticmaali kartaa, caadi waaye. waxaan kaloo isticmaalayaa 2 qaando oo soya sauce. hadda hal ayaan ku shubay, hadhowna gadaal ayaan mid ugu shubi doonaa. waxaan kaloo isticmaalayaa, aan ku darayaa wax yar oo basbaas ayaan ku dari doonaa. basbaas qasab ma ahan, haddii aadan rabin waad iska dhaafi kartaa. laakiin wax yar oo basbaas ayaan ku darsanayaa aniga. basbaaskan isticmaalayana waan idin tusi doonaa insha allah. digaagan inaba caadi ma ahan, waqti dheerna ma qaadanayso karitaankeeda, nus saac ilaa 40 daqiiqo ayay ku karsameysaa. waa kana basbaaskan ayaan isticmaalayaa. waa basbaas gaduudkeenii oo lasoo shiiday. asigana hal qaando ayaan ku darayaa, aad uma kulula, laakiin haddii aad ku badisid maasha allah wuu kululaanayaa. marka hal qaando ayaa igu filan aniga. intaani ayaan rabaa marka inaan si fiican iskugu qaso. waxaan kaloo ku dari doonaa saliid, ayaan hilmaamay, waatana saliideeni 2 qaando saliid ayaan ku dari doonaa. digaagan waxaa waaye adiga nus kiilo camal waaye intaan isticmaali doono chicken wingska. intaani waa kana hadda marka si fiican ayaan iskugu qasayaa. si fiican markaan iskugu dhex qaso, xawaajiyadii ayaan ku darsan doonaa maasha allah. inaba caadi ma ahan. hal qaando waa kana oo soya kale ayaan ku daray. soyadii wax yar way igu yareyd, saan idin sheegay, 2 qaando ayaan isticmaalay soya, 2 qaando oo kajab ama yaanyo shiishid, intaba waad isticmaali kartaa. hadda waxaan ku dari doonaa waa qaando cusbo waan ku darsanay. waxaan kaloo ku darayaa qaandada yar oo barbarooniga shiidan gaduudka ayaan ku dari doonaa. waa kana halkii qaando. waxaan kaloo isticmaalayaa tuun. marka waxaan ku darayaa 2 xabo tuun. inta aad rabtid waad isticmaali kartaa, tuunta caraf lee keenaysaa maasha allah. intaani ayaan rabaa hadda in aan si fiican iskugu qaso. si fiican markaan iskugu qaso, digaageena waa inoo diyaar, yacni hore ayaan usoo raacsiiyey liin iyo cusbo ayaan kusoo dhaqay maasha allah. digaaga marka waan dhex gelinayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinaa. si fiican markaan isku dhex geliyo, firinjeerka ayaan gashanayaa 2 saac ilaa 3 saac. waxaan rabaa in uu si fiican oo digaaga uu u galo oo maasha allah macaankii dhanaankii dhan gudaha uu ka galo ayaan rabaa. hadhow ovenka ayaan gashanaynaa nus saac ilaa 40 daqiiqo ka badan kuma jiraayo. marka hadda waa kana digaagii dhexda ayaan ka gelgelinay, waa isku qasayaa. markaan isku qasano bac ayaa hadhow ku daboolaya, firinjeerka ayaan gashanaynaa insha allah. waqtigiisa markii la gaarno ovenka ayaan gelinayaa. waxaad ku shidaysaa 200 iyo maxay ahayd 230 ilaa 250 ayaad ku karinaysaa nus saac ilaa 40 daqiiqo. haddana bac ayaan ku xirayaa. bac markaan ku xiro
bulgurka markaan diyaarsanayo ayaa maxay ahayd idin tusin doonaa insha Allah asxaabta daawasho wacan. Hadda bulgurkeeni ayaan sii karsanaynaa saliid yar ayaan kusoo shubay basashii intaan markaan isku shiilo kadib ayaan waxaan ku darsanaynaa karooto ayaan soo hoolay waa xabad iyo bar karooto ayaan soo hoolay waa kana karootadeen ayaan ku shubanaynaa karootada markaan ku shubo intaan ayaan si fiican iskugu karinayaa kadib ayaan idin tusi doonaa insha Allah xawaajiyada aan ugu talagalay oo aan isticmaalayo. waa kana xawaajiyada aan isticmaalayo waxaa ka mid ah maraq digaag xawaaji kaari toonta shiidan barbarooni shiidan iyo maxay ahayd xawaaji dhuudhuub iyo cusbo yar intaas ayaan ku dari doonaa insha Allah bulgurka waxaan kaloo ku darayaa barbarooni ayaan isticmaalayaa laba barbarooni ayaan isticmaalayaa barbarooniga jaalaha iyo barbarooniga maxay ahayd cagaarka ayaan isticmaali doonaa ay khudrad adiga aad ka heshid mise aad jeceshahay ayaad ku karsan kartaa kow khudrad iyo markaad karisid kadib ayaad ku shubanaysaa bulgurka khudradda oo barafka ah asina aad iyo aad ayuu ugu macaan yahay maasha Allah inaba caadi ma ahan hadda waa kana waxaan kusoo ridanay barbaroonigiina intaani ayaa wax yar aan u sugayaa inuu si fiican dhexda iskaga galo kadib ayaan ku shubi doonaa bulgurka bulgurka saa ogtihiin waxaa waaye kastoo qaleel ayuu noqonayaa marka wax yar saliid fiican in lagu kariyo ayaa fiican si uusan qaleel zaaid uusan u noqonin bulgurkii waa kana waa soo dhaqay markaan soo dhaqay cabaar ayuu banaanka yaalay kastoo wuu qalalay bulgurka sida bariiska camal biyo hadii lala dhigo biyo badan ayuu nuugayaa hadhow marka sida mishaari camal ayay kaa noqonaysaa taasina ma rabi insha Allah marka waa kana bulgurka dhowr mar ayaan gidgidinayaa markaan gidiyo wixiis xawaajiyadiisii wixiisa dhan waa u dhammaystiray biyo kuleel ayaan ku shubayaa maasha Allah biyo kulul markaan ku shubo waan huurinayaa markaan huuriyo adii 10 ilaa 15 daqiiqo maasha Allah bulgurkeeni waa inoo diyaar markuu hadhow diyaar inoo noqdo kabsar ayaan korka ugu qurxin doonaa maasha Allah kadib maasha Allah bulgurkeeni waa inoo diyaar hadda marka waan daboolayaa maasha Allah asxaabta waa kana afurkeeni kusoo dhawaada bulgurka saad arkaysaan furfur waaye inaba caadi ma ahan digaagood ujeedaan siduu u gaduutay oo yacni u qurxan yahay asigana lagama sheekeyn karo barbarooni yar iyo maxay ahayd sabiib iyo waxaan isticmaalay basal ayaan korka ugu qurxiyey inaba caadi ma ahan waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabisaan waa afur yar oo fudud oo aad u macaan healthina ah maasha Allah waqti badan aanan naga qaadanaynin ayaa maanta jeclaysay inaan idinla wadaago asxaabta waxaan rajeynayaa idinkan inaad ka hesheen videoga haddaad ka hesheen asxaabta ha iga hilmaamina subscribe like and share iyo comment dhiirigeli weyn ayay inoo tahay waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida quruxda badan oo aad ila socotaan mar walba videoyada aad ugu xirantaan iyo commentiyadiina quruxda badan leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ayaan idin leeyahay insha Allah haddii aad soo tijaabisaanne ii soo dira sawiradiina iyo saad u aragtaan aniga runtii aad iyo aad ayaan uga helay inaba caadi ma ahan marka insha Allah asxaabta videogeeni maanta intaan ayuu ku eg yahay insha Allah ilaa video kale aan ku kulmeyno khayr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh